dhammaanteen waxaan la kulanaa waqtiyo aan ka walaacsannahay ka walwalayno arrimo mararka qaarkoodna dareemadaas aan dareemayno waxaa dhacda inay inoo wareejiyaan inoo xawilaan inaan aad u fikirno fikiradaas saa'idka ahna wuxuu wax u dhimi karaa ama dhaawici karaa caafimaadka maskaxdeenna iyo weliba badqabkeena waa muhiim aad ah inaan barano sidii aan iskaga joojin lahayn fikradaha aan wax ku oolka ahayn waxaan fiidiyowgan kugu soo gudbinaynaa talooyin ku saabsan sida loo joojiyo fikirka xaddaafka ah ku dhaqan baraagtiis garee inaad samayso mindfulness mar walba xoogga saar waxaa gacanta ku hayso wuxuu doono ha ahaado aqoon u yeelo garo fikradahaaga meesha ay ka imaanayaan laakiin ha ku dhex milmin jaalanji garee taxaddi ku samee afkaarahaaga negatiifka ah weydii naftaada haddii fikradahaadu ku salaysnaan lahaayeen xaqiiq amaba ay ahaan lahaayeen uun cabsi iyo mala awaal ama shaki uun ku mashquul naftaada oo mashquuli samayne activity-ga aad jeceshahay inaad samayso ama ka dhex bax deegaanka xaaladda kugu sababaysa in aad dareento stress kadibna kugu xawilaysa inaad meel fadhiisato aad dhafoorada qabsato isticmaal inaad naftaada si togan oo positiifa ugula hadasho afkaarahaaga taban ee negatiifka ah aad kula hadlaysa naftaada u bedel kuwa wanaagsan oo ku gelinaya hididiilo iyo hanaqaad wanaagsan xusuuso oo isxasuusi meelaha aad awoodda ku leedahay meelahaad ku wanaagsan tahay meelaha aad guulo waaweyn ka soo hoyeysay taageero raadso saaxiib aad ku kalsoon tahay aba xubin qoyska ka tirsan oo aad ku kalsoon tahay aadna aaminsan tahay ama xitaa professional haddii loo baahdo inaad kala hadasho waayo overthinkingku wuxuu keenaa dhibaatooyin badan oo meel xun ku gaarsiinaya dabcan mar walba waxaan aragnaa bulshadeenna qaybo ka mida oo samaynaya ficilo aan la samayn karin ficilo aad argagax u leh dabcan qofkaasi ficilka samaynaya hal mar kuma aysan boodo kuma ahan waxaanu samaynayo laakiin process dheer ayuu soo maray laakiin cid isweydiinaysa ma jirto overthinkingku wuxuu keenaa dhibaatooyin badan oo meel xun ku gaarsiinaya xasuusnow in fikirka saa'idka ah oo dhibta sababaya uu yahay wax caam ah oo adiga gooni ku ahayn oo dadyow badani la halgamayaan laakiin waa macquul in aad ka guulaysato adigoo isticmaalaya talaabooyinkan oo aad naftaada u naxariisanayso waxaad jebin kartaa wareegan fikirka saa'idka ah aan wax ku oolka ahayn oo aad ku noolaan kartaa nolol buuxda oo nabad ah aadna gudahaaga ka dareemayso iska sii daa iska ilow dhafoor haysiga ku noolow daqiiqadan aad haysato overthinkingu ama fikirka saa'idka ah aan wax ku oolka ahayn wuxuu kaa dilayaa farxadaada wuxuu saamayn xun ku yeelanayaa caafimaadkaaga wuu ku gaboojinayaa oo wuxuu kaa dhigayaa qof da'diisa ka weyn aakhirkana wuxuu ku dhigayaa cusbitaal ka feejignow oo mar walba ka fikir inaad dhinaca wanaagsan uga baxdid wax walbana aad u turjumatid dhinaca wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen wixii khayrka ku jira ha ina wada waafajiyo waxaan idinka tegaa dhammaanteen fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh